بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان bahda ku xiran channelka MK channel iyo kuwaan ku xirneenba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii sharxitaanka maadada fiisikiska ee fasalka form 2 ee manhajka cusub aynu ka maraynay chapterkii shanaad qeybihiisii dambe ee la magac baxay electrostatic 1. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka inoo subscribe garee adigoo ku danay gambaleelka like commentiguna waa inoo muhiim mahadsanid. waayahay waxaynu hore usoo qaadanay dhowr cashiradood oo ay ka mid yihiin electric charge and charge method si lamid ah coulomb law electroscope iyo van der Graaf. haatan waxaynu kala qaadan doonaa electric flux wax loo yaqaan electric flux. waayahay haddii aan gudaha usii gudagalno electric flux muxuu yahay electric flux? burqad danab ayaa loo yaqaanaa. waa maxay electric flux? burqad danab ayaa loo yaqaanaa. haddaba burqad danabku muxuu yahay? The number of electric field lines will travel through a certain element of area. Electric flux waxaan ku qeexi karnaa waa the number of electric field lines will travel through a certain element of area. waa inta number ee electric field line ah ee ku safraysa ama ku soo gudbaysa aag markaa cayiman ama area cayiman. sida hadda u jeedaan sawirka idinkaga muuqata halkan waa areadii oo aan usoo gaabanayno lemiska marna waa electric field line. hore waxaan usoo sheegnay electric field line inuu yahay ama actual ama wax loo yaqaan excellent wayga loo muujin karo electric field-ga maadaama electric field-ga aan la arki karin laakiin represented la muujin karo. so marka electric field line-kaasi inta electric field line ee aaga markaa cayiman ee gaarka ah ay kasoo gudbayaan ama ay soo dhex marayaan ayaa waxaa loo yaqaanaa marka electric flux. si kale haddii aan dhahno electric flux burqad danabku waa is the rate of flow electric field line. waa cadadka ama inta electric field line through soo maraysa given area markaana la siiyey ama area markaa cayiman ayaa waxaa loo yaqaanaa electric flux. burqad danab waa inta electric field line ee maraysa area aag markaa gaarka ah ama area cayiman ayaa waxaa loo yaqaanaa electric flux. haddaba electric flux waxaa loo soo gaabayaa symbol ceenka oo kale ah si lamid ah markaan waxaa loo soo gaabayaa symbol oo fire loo yaqaan. okay, the unit of electric flux halbeegiisuna waa newton meter squared per coulomb. waa newton meter square per coulomb ayaa ah marka halbeega marka aan ku cabiri doono electric flux. haddaba electric flux waxaan kaloo ku sheegi karnaa qaacidadiisa oo ah electric fluxka waxaa lagu helaa electric field-ga oo markaa yacni inta electric field line-ka ama electric field-gaasi oo lagu dhufto marka area-da markaa meesha ka jirta ama aaga gaarka ahi meesha electric field line-ka ku dhaqmayso. so electric field-ga iyo area-da la isku dhuftaya waxay la mid tahay electric flux ayay la mid tahay. okay, when the same plane markii plane-ka is inclined u jiran jeer qaab theta hadduu sameeyo angle ah sida area-da waxay isku bedelaysaa marka qaab loo yaqaano area cos theta. haddii angle uu sameynayo area-da iyo leenka iyo electric field line-ka haddii angle sameynayaan haddaba area waxay noqonaysaa qaabkaana nala siin doona oo ah a cos theta. therefore marka sidaa aweed electric flux waxay noqonaysaa electric field-ga oo lagu dhuftay area cos theta maadaama hore u ahayd e lagu dhuftay a hadda waxay noqonaysaa e lagu dhuftay a cos theta ayay noqonaysaa. waa goormay? waa markii ay la samayso angle ama xagal. waxaynu soo sheegnay electric fluxka inuu yahay inta electric field line ee maraysa aag marka gaarka ah ama area marka cayiman ayaa waxaa loo yaqaanaa electric flux ama burqad danab. waayahay burqad danabku waxaynu dhihi karnaa marna waa zero marna waa maximum. goormay ayuu maximum yahay? aan ku hormarno. goormay ayuu maximum yahay? waa when the area waa markii area is held perpendicular ee ku qotonto to the field line. area-da markii ay ku qotonto electric field line-ka badada danabka ee leemiska then the flux is maximum. waa maximum oo mid waa badan weeyaan oo zero aanan ahayn. waa goorme? waa marka area-da ay ku qotonto field-ga. haddaba meeshan fahmitaan badan ayay u baahan tahay bal aan sii faahfaahino. okay, masalan kaba soo qaad halkan waa area-dani haddii aan soo dexdusino electric field line-ka sidaa u jeedid area-da iyo electric field line-ka waxay isku yihiin perpendicular.
area-da iyo electric field line-ka waxay isku yihiin kuwa isku qotoma laakiin lane of area ama normal area ama factor of area ama direction of area intaba waa dhihi kartaayo iyo electric field line-ka waxay isku yihiin parallel intaa weeyaan inta fahmitaanka guud u baahan marka ay zero noqonayso iyo marka ay maximum noqonayso iyo tiitooyinka waxyaabaha u qaadan doono okay waxaan markii electric field line-ka iyo area-da ay isku qotomaan laakiin electric field line-ka iyo direction of area ee parallel yihiin yani direction of area iyo electric field line-ka waa parallel laakiin yaa perpendicular ah area-da markaasi iyo electric field line-ka yaana parallel ah normal area ama area of direction ama factor direction iyo electric field line parallel waa maadaama parallel ay yihiin tiitadeena waxay noqonaysaa zero intaa haddii aadan fahmin inaan ku celcelis isku day tiitadu waxay noqonaysaa zero waxaan dhahnay haddii direction of area iyo electric field line-ka ee parallel yihiin tiitada waa zero si kale u dheh haddii area-da caadiga area-da meesha iyo electric field line-ka isku qotomaan direction of area aysan ahayn markaa oo area-da aan ka hadlaynayo electric field line-ka isku qotomaan tiitada waa zero si la mid ah haddii aad dhahdo direction of area iyo electric field line marka ay parallel yihiin waya goormay zero ay tahay when the area is held parallel markii area-da ay parallel la tahay to the lane-ka ay parallel la tahay then the flux is zero fluxku waa zero electric flux idan sidoo kale markii area-da parallel la tahay ama ay barbar socod la tahay ay lane-ka ama electric field line-ka electric fluxku waa zero intana fahmitaan kala u baahan midalan this area oo meel iska yaal ama ha ahaato goobo ama ahaato mid fidsan ama ha ahaato triangle okay sida hadda meeshaan area-da yaal haddii lemiskii electric field line-ka ahaa ee soo dhex dusina ama aan marsiino kor ka marsiino area-da caadiga area-da iyo electric field line-ka parallel ay isku yihiin laakiin yaa perpendicular ah waxa perpendicular ah direction of area iyo electric field line-ka ayaa perpendicular ah intaa fahmitaan guud ay u baahan tahay bal inaad ku celceliso isku day si aad u fahanto waxaan dhahnay electric field line-ka iyo direction of area ama factor of area ama normal area waa perpendicular yaa parallel ah marka area iyo electric field line-ka ayaa parallel ah okay ana marka direction of area-da iyo electric field line-ka mar walba يعني target noo noqonaya haddaba maxay sameynaya marka waxay sameynaysaa marka angle oo loo yaqaan right angle ka waa naqaanaa xagashiisu waxay sameynaysaa waa 90 degree electric field line-ka mar walba iyo angle la sameynaya waa factorka area-da ama direction of area iyo angle la sameynaya that's all so marka tiitada waxay la mid noqonaysaa marka 90 degree okay mid saxad wuxuu leeyahay when the area makes an angle waa sida hada caadi soo sheegnay markii area-da uu la sameeyo xagal uu la sameeyo then electric flux waxayna be equal this formulahana loo qaadanaa marka e in la mid e lagu dhuftay area oo ku dhacsan marka cos theta waa markii area-da ee la sameeyo angle fluxkan waxay la mid noqonaysaa marka qaabkaas ayay la mid noqonaysaa okay bal example-ka ugu horeeya anagoo u fiiriyayna marka sida hadda aan soo marnay waxaan la weydiiyay tusaale the figure below sawirka hoos noogu muuqata wuxuu sheegaa marka in circular lobes oo leh radius oo 10 cm ah in la dhigo uniform electric field oo dhan intaan oo ah 2 lagu dhufto 10 ku jibaan 4 newton per coulomb haddaba the line of the force waxay la sameysay marka 30 degree haddaba waxa soo heshaa marka electric flux of the circular lobe markii ay 30 degree la sameynaysay iyo electric fluxka when a circular lobe rotates oo yani rotates mo parallel ahaan to the lane-ka uu parallel leeyahay si la mid ah markii perpendicular uu leeyahay saddexdood ayaan soo saarayna marka bal aan fiirino marka okay marka hore given-keen waxay noo tahay e oo aan haysano oo ah electric field-ga oo aan haysano 2 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 4 newton per coulomb halka tiitadii aan haysano 30 degree artana aan haysano 10 cm oo aan u bedelnay marka meter oo aan u qaybinay 100 sida awgeed 0.1 ayaan soo baxay okay aan ku hormarno su'aasha koowaad intaan ku hormarno su'aasha koowaad waxay ognahay haddii electric flux aan raadinayno in area-da laga maarmaan ay tahay in la helo haddaba area-da marka hore aan soo helno area-da of circular waxaa ognahay in lagu helayo pi r square area of circular ama circle in lagu helayo pi r square haddaba pi waxaan haysanaa 3.14 r-tana waxaa haysanaa 0.1 square markii aan ku bedelno durbadiiba oo r-tana square gareyno pi-na aan kusii dhufano area-da waxaa helaynaa 0.0314 meter square area-da waxaa haysanaa 0.013
oo 0.0314 meter square. Okay, su-aasha koowaad haddii aan ku hormaro su-aasha koowaad waxaa la lahay marka electric ama circular loobka angalka 30 degree markii la sameynaysa ayaa laga rabaa inaad soo saxesho. haddaba e waxaan haysanaa oo qiimihiisa waan haysanaa waa ka. Okay, si la mid ah accelerationka oo hadda aan soo helnay asigana sidoo kale oo aan soo helnay 0.0314 iyo tiitadiina aan haysano oo yacni 30 degree ah aan ku bedelan marka si toos ah markii aan ku bedelano e waxay la mid tahay waa 2 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 4 lagu dhuftay 0.0314 oo area u taagan oo lagu dhuftay cos tiitadana ay u taagan tahay 30 degree. durbadiiba markii aan isku dhufano si toos diifa u gulisana waxaa soo baxaysa marka 544 yacni tira caadi ah oo soo baxayso point ah markii aan halka soo wareejisana waxay ku imaanaysaa 544 newton meter square per coulomb maadaama halbeegiisu ahaa. Okay, su'aasha koowaad qaybteeda A waan ka jawaabnay. su'aasha koowaad qaybteeda B isla qaacidadana u maraynaa laakiin waxay faham u baahan tahay markii area-daada uu parallel leeyahay tiitada aan qaadanayn maxay tahay. Okay, waa jeedaan markii area-da uu parallel leeyahay waa circular loobka markuu area-da parallel uu leeyahay laakiin yaa perpendicular ah. direction of area iyo electric field line-ka ayaa perpendicular ah. then haddii perpendicular yihiin waxay sameynayaan angle oo right angle loo yaqaano tiitadana waxay noqonaysaa 90 degree. haddaba tiitada waxaan isticmaalaynaa 90 degree. aan ku bedelno marka e qiimaheeda iyo a qiimaheeda si la mid ah cos tiitana oo aan helnay 90 degree. 90 degree soo ku helnay sida hore aan soo sharaxnay. area-da iyo electric field line-ka waa parallel laakiin direction of area iyo electric field line-ka waa perpendicular. haddaba taas yacni anaga targetkeena noo ah. Okay, markaan ku bedelno 90 cos tiitada marka 90 ku bedelno isku wada dhufanana electric flux waxay la mid tahay 0 because cos 90 ayaa 0 la mid ah. cos 90 haddii 0 lagu dhufto wixii inta ka soo harina waa 0 haddii lagu wada dhufto waxay soo helayso marka 0. that's why markaan leenahay electric flux-ka wuxuu 0 yahay marka uu parallel leeyahay electric field line. si kale haddii aan dhahno waa marka uu perpendicular uu leeyahay electric field line markuu perpendicular leeyahay direction of area ama factor of area ama normal area. Okay, su'aasha kale sida ah isla qaacidadan u maraynaa laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano marka tiitadeena ma 90 ma 60 ma 0. Okay, مثلا waxaan dhahnay marka direction qaabka markuu u yaalo wuxuu ku qotomaan dhahnay leenka electric field line-ka way ku soo qotomaysaa dhahnay marka ku soo qotanto electric field line-ka area-da laakiin ay parallel la tahay direction of area ay parallel la tahay. direction of area ay parallel la tahay maadaama direction of area ay parallel la tahay tiitadeena haddaba waxay la mid tahay 0 degree ay la mid tahay. soo marka tiitadeena marka 0 degree ku bedelano cos 0 waa 1 inta markii la isku dhuftana waxa inoo soo baxaysa 628 newton meter square per coulomb. Okay, labada qayb perpendicular-ka iyo parallel-ka iyo perpendicular-ka waa inaad fahanto isku day insha Allah. dawlad ma wixii ka fahmi weysana igala soo xiriir WhatsApp number-ka ama YouTube comment-ga inoo reeb maasanid. waayahay example-ka xiga u dhacaysa sida tan a solid ball with 0.5 meter radius has 10 microcoulomb electric charge in its center. determine electric flux pass through a solid ball. solid ball-ka ama kubadda ayaa meter radius ahaan leh 0.5 kaasoo leh marka electric charge dhan 10 microcoulomb xagga centerka. haddaba waxaad rabtaa inaad cadeyso marka ama aad rabtaa inaad go'aamiso electric flux-ka halka solid ball-ka soo maraysa. waayahay. Okay, solution waxaan haysanaa oo given noo ah r oo ah radius-ka 0.5 meter q oo ah charge-ga 10 microcoulomb waxa aan baadi goobeena rabno inaan soo helnana waa electric flux. haddaba electric flux waxaan ognahay in lagu helaayo maadaama uu hadda angle uu la sameeyay electric flux wuxuu la mid yahay marka qaacidada oo qaabka loo yaala e oo lagu dhuftay a. haddaba markii aan fiirino given-kan e na ma heesano a na ma heesano mid walba goon aan soo helno. aan ku bilaawno e-da waxa lagu helaa ama electric field-ga waxa lagu helaa kq oo loo qayb r square. haddaba k waxa naqaanaa inay la mid tahay 9 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 9. q-dan waa naqaanaa oo ah 10 microcoulomb. microgan waxay u dhigantaa aan dhahnay 10 oo ku jibaaran
minus 6 ayay u dhigantaa 10 ku jibaaran minus 6 haddaba aan ku bedelana si toos ah 9 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 9 oo lagu dhuftay 10 microcoulomb oo la mid ah 10 lagu dhuftay 10 lagu jibaaray minus 6 oo loo qaybiyay r aan haysano 0.5 meter square then markii aan gelino si toos ah scientific aan gelino durbadiiba electric field line-ka waxaan helaynaa 3.6 ku dhufsan 10 ku jibaaran 5 newton per coulomb waayahay ida waana helnaa oo electric field ah hadda waxay noo dhiman xeeta x area da si aan u helno marka electric flux lian electric flux ayaa waxa lagu helaan dhahnay e oo lagu dhuftay a edi waan soo helno marka aan baadi goobnay haddaba a na aan baadi goobno area of solid yani it means waxa ka dhiganta area of sphere maadaama kubadi ay tahay area of sphere maxay la mid tahay marka area of sphere waxay la mid tahay 4 by r square 4 by r square ay la mid tahay so markii aan ku bedelino intaan heesano r t square gareeno durbadiiba area-deena waxaan helaynaa 3.14 oo meter square ah 3.14 oo meter square ah okay 3.14 oo meter square ah area-dan helnay tan wax naga celinaya si aan u helno electric flux kama leh sida awgeed electric flux waxa lagu helaa e lagu dhuftay a oo electric field oo lagu dhuftay auxiliary electric field oo lagu dhuftay area afan sida awgeed marka aan ku bedelana marka inta aan helno e oo ah electric field-ga waxaan haysanaa 3.6 halka a oo area-da ah waxaan haysanaa 3.14 haddaba markii la isku dhuftana waxay noqonaysaa 1.13 times 10 to the power 6 newton meter square per coulomb waayahay aad u mahadsantihiin dhegeysigiina wacni daawashadiina fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalka noo subscribe garee adigoo gujinay gambalek like commentiina waa inoo muhiim mahadsanid la soco cashirka xiga bye bye